السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا قالي كسر هذا القناة كنا فضلنا هدي أنا وعصبتي سبسكرايب نوده هدي أدخلنا لجوكتنا شيرت لايك كومنت وينو ديرجلين sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa gabdhaha cusub ee nagu soo biiray kuwii hore nala jooga intaba noo share gareeya laagta meel fiican ayay gaarsiinaysaa insha Allah. maanta waxaan ka hadli doonaa uurka markaa soo daahay ugxaanta daciif markaa tahay ma jeceshahay inaad riximkaada nadiifiso oo clean gareyso insha Allah ta'ala nala faa'iideyso. marka hore waxaa halkan uga jeetaan waxaa weeye waa dhagayare ما شاء الله عجائب والله جيت كان فائدوينكيس انت لكم سو كوبي كر هدو ahaan lahaa mid kama maaska inaad ka dhigato madaxa jirka saliida ka dhigato ilka xanuunka insha Allah mid kasta goonidiis ayaan uga hadli doonaa. maanta waxaan ka faa'iideysan doonaa insha Allah ta'ala habka loo isticmaalo mar walba aad doonaysid inaad insha Allah ta'ala uur qaado ugxaamahaadu ay aad active u noqdaan maxay ahayd tayo yeeshaan maxay ahayd riximkaadana aad nadiifiso insha Allah ta'ala. waxaa sameynaysaa waxaa soo qaadanaysaa dhagayare waa la wada yaqaanaa ma sha Allah. inta badan waxaa u isticmaalnaa shaaha inaan ku darsano gabar kasta jikadeeda insha Allah in laga weynayo u malayn maayo marka faa'iidooyin kalena wuu leeyahay shaaha kaliya ayaan loo isticmaalin. marka waxaa soo qaadanaysaa dhagayaraha haddaa doonto waa shiidanaysaa marka shiido oo budo aad ka dhigto ama daqiiq ka dhigato waxaa soo qaadanaysaa koob ayaa soo qaadanaysaa hal qaando oo budadii ah oo dhagayarihii budada aad ka dhigtay ama daqiiqda aad ka dhigtay ayaa ku shubanaysaa biyo aad soo karkarisay ayaa ku darsanaysaa waa ku laabanaysaa waa ku calaanjinaysaa meel ayaa dhiganaysaa ilaa xoogaa oo diirmaad uu kaaga noqdo oo cabi karto. qaabka kale loo isticmaalayo waxa weeye waxaa soo qaadanaysaa dhagayaraha asigoo sidiisa ah oo sidiisa u nool saaxadda halkaan uga jeedno kirliga ama jalmada ayaa dabka biyo saaraysaa 2 qaando ayaa ku shubanaysaa ama 3 qaando adi maalintii 3 koob inaad ka cabto waa muhiim. marka waxaa soo qaadanaysaa 3 qaando oo dhagayaraha ah oon asigoon la shiidin oo sidiisa ah jalmada ayaa ku shubanaysaa biyo ayaa ku darsanaysaa 3 kooba bis waa ku karkarsanaysaa marka ku karayso midabkiisa isbedelo oo sida halkaan uga jeedno koobka waxa inta ku jirta camad uu noqdo ayaa ka soo degsanaysaa meel ayaa dhiganaysaa adii markuu daqiiqado ku yaalo oo noqdo diirmaad la cabi karo ama qabow zaid far badan ma fiicna inuu zaid kaaga qabow ma wanaagsan xoogaa diiran ama qandac saa u naqaano ayaa ka dhiganaysaa marka waxaa ku darsan kartaa qaado malab ah subax insha Allah ta'ala waa cabi kartaa duhurkii koob kale adiga habeenka ama galabtigiina koobka saddexaad ayaa cabaysa insha Allah ta'ala. dad fara badan ayaa ku faa'iiday alxamdulillah intaanan haysan Allah siiyo baariyaal ah wanaagsan u soo degdego oona ka soo daahin inta haysatana afwan Allah u barakeeyo baariyaal Allah uga dhigo insha Allah ta'ala. marka dhagayaraha faa'iidiisa halkaan lagu soo koobi karo riximka aad ayuu kuugu nadiifinayaa wasaqdi kaaga harta doorada iyo wixii kaaga harhay iyo dhammaan wuu ka nadiifinayaa tanshiidu mabaayidna wuu yahay wuxuu aad u caawiyaa maxay ahayd ugxaamaha ayuu zaid active uga dhigaa dibadda u soo saaraa ma sha Allah. ilaahay marka geed walba uu noo keenay daawadiisa ayuu leeyahay marka alxamdulillah inta haysatana Allah u barakeeyo inta haysanina uba degdega oo bariyaal ah Allah siiyo insha Allah ta'ala. gabdho noo sii share gareeya insha Allah ta'ala wax walba maxay ahayd doodin kala faa'iideysan insha Allah ta'ala annagana waa idin soo gudbi doonaa noo sii share gareeya insha Allah ta'ala. wassalaamu calaykum.